السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي isku soo noqod wanaagsan meeshaad naga daawanaysid waa chef Braro soo dhawaada maanta waxaan wadaa bariis khudaar iyo lagu sameeyay tuna fish iyo ukun alaabtan inaba caadi ma ahan saa u jeedaan aad ayay u qurux badan tahay bariiskaygu waa furfur macaanka iyo caraftana anaa idiin og alaabtan waa hubaal haddaad si fiican u daawatid oo aad fahantid oo aad kasoo tuurtid inay ku qaban doonto sida shaahi bay ku qabanaysaa waa bariis aad u macaan waqti badanna ma gelinaysid kaaliska arag si yaroo fudud baa u samaysanay aad baad noogu helaysaa bariisku waa furfur kaaliska arag bariiskana laba karmare misdhaysid biyaa soo karkarsanay wax yar saliidahan ku shubanay sidoo kale caleenta bariiska lagu kariyo iyo hayl iyo cusbo iyo filfil iyo dhagayare iyo caleen aan kasoo jaranay maxaa la dhahaa kabsar caleen oo intii hore aan soo tumanay baa halkaa noogu jirto kaaliska arag bariiska ku shubanay bariiskaas insha allah wuu noo soo karsamay waan soo miiranayaa sidoo kale waxaan ka gurayaa wixii dee aan ku dardaray oo dhan saysan dadka ilkaha uga gelin halkaa tuna fish macal saliideedan ku shubnay wax yar oo huruud fariisuul ah wax yar oo xawaaji ah iyo maraq digaag intaas si fiican iskugu walaaq kaaliska arag alaabtan aad bay u fududahay aadna way u macaan badan tahay waad ka heli doontaa alaabtan bariiskii waa kaasaa wax yar waa haf aan soo siinay bariisku weli waa cayriin filfishii iyo dhagayarihii iyo kabsartii iyo wixii o dhan oo kasoo gurnay haylkii caleyntii laakiin aad buu u carfayaa maadaama intaasoo dhan aan kusoo karinay isku walaaq tuna fishka iyo bariiska si fiican markay iskugu kaa dhex galaan insha allah baa steebka dambe u gudbeynaa alaabtan kaaliska arag wey aad bay u fududahay aadna way u macaan tahay waa hubaal waad ka helaysaa alaabtan haddaad samaysatid hilib jikinkaaga ma baahna kaaliska arag waa jawi degan weye waa fahanteen oo malaynayo si fiican saas markaa iskugu dhex gelisid waxaan sameynaynaa hadda khudaarta isku darsanaynaa halkaa waa digir iyo waa fajoli iyo mais iyo yaanyo digirtan intaan way isku samaysan tahay khudaartan fridge weeye 3 xabo barbarooni ah oo kala nooca iyo basal baan ku darsanay wax yar baan kasoo isticmaalnay maadaama anaga bariiskayga hal koob iyo bar uu ahaa saliid yar baan ku darsanay sidoo kale wax yar oo xawaaji ah iyo wax yar maraq digaag aan ku darsanayna alaabtan inaba caadi ma ahan macaankeeda ma malaynaysid isku walaaq markaa si fiican iskugu walaaqdid weelkaan ku gashan lahayn insha allah mashiin baan isticmaalaynaa annaga waxaan isticmaalaynaa digsi koronto ah ma isticmaali doono spaceka halkaas basal ukun iyo baradhaan soo karsanay iyadana waa ku darsan doonaa insha allah ukunta biyaan kusoo kariyey baradhadana biyaan kusoo kariyey digsigu waa kaasaa digsigan bariiska aad ayuu ugu macaan yahay chinese waaye digsigan aad baan uga helay jawi degan weeye ciiltiraa la dhahaa digsigan ma fahantay alaabta aad ku darsanaysaa waa soo agdhigaysaa haddaa wax kale ku mashquulsan tahay asagaa iskarinaya asagaa isdaminayo uma baahnid inaad kontrolshid fiirfiirisid aad wixiisa u qiyaas kaaliska arag khudaartii markaa hadda ku shubanay baradhadan saarsaaranaynaa iyo ukunta waa steebkii labaad weeye insha allah steebka dambena bariisku noo noqon doonaa u dambeeya haddii alla idmo kaaliska arag alaabtan si yaroo huuray kugu karaysaa digsiga babataatan bariiskiisa furfur baa loogu talagalay xataa haddii biyaha kaaga bataan qiyaastaada aad garan weysid digsigan wuxuu kaaga dhigayaa mar walba bariiska furfur buu kaaga dhigayaa bariiskayga waan soo qaadnay bariiska inaan saliid ku darno uma baahna because tuna fishka saliid buu lahaa kaaliska arag intaasaan isku huurinaynaa haddii alla idmo digsigaas asagaa isdaminayo hadday u badato 30 daqiiqo qaadanaya markaad bariiska ku karinaysid waxaan sameynaynaa basal yar baan korka saarsaaraynaa basashaas caraf bay siinaysaa saliid ku darso waxaa rabti ku darso korka ka saaro annaga basashaas oo isticmaalayna insha allah digsigu waa digsigaas in badan baad aragteen baan u malaynayaa laba qayb buu leeyahay qaybna waa markaa rabti inaad wax kululeelsatid oo haddaayoo kale aad karsatay qaybna waa kariska wey qaybka hadda uu ku taagan yahay waa kariska waxyaalaha karinaysid qaybtaasna waa markii loo baahan yahay in la cuno inaad ku kululeysid waxaan sameynaynaa koobiya isticmaalaynaa insha allah koobiya oo buuxo baan isticmaalaynaa maadaama xataa baradhadayada masakoota ahayd xoog maysan bislaaninin bariiskayguna xoog muusan bislaaninin masakoota waa meeshii la rabay ma ahayn waxaan ugu talagalnay inaan halkan ku bislayno kaaliska arag alaabtan insha allah si fiican jawi degan inoogu soo bislaanaysaa qurux macaan kaaliska arag waxaana hilib iyo uma baahna basbaas iyo liini moosle usoo qaado alaabtan way kugu soconaysaa hadal la-aan ma fahanteen wuu noo soo bislaaday haddeertaan insha allah saxankaan ku gadisan lahaynaa soo qaadanaynaa saxanka digsiga sibixsibixible waan gubtay baxaax kuleelkiisa maraan doontay ma fahanteen maraan doontay markii hore waa saqirtay waxaa islaaca ogaa waa qabobaya because cabaar baan sugayay saasaan ugu gadinaynaa
alaabtan basbaas iyo liin haddaa ku cuntid waa hubaal aad baad uga helaysaa aad buuna u macaan yahay bariisna dee soomaali baa u nahay markii carab laga yimaado ma fahanteen chineska laftirkiisa bariis badan bay cunaan waa ujeedaa alaabtii furfurka aliska arag buu noqday macaan caraf yaa uu dheelitiran yahay asxaabi aad baad uga hesheen oo malaynaya insha allah soo baraweey soo fiiriya sii shaargaray saaxiibadaada la sii wadaag waxaa fahmi weysidna insha allah commentiga alaabtii waa taasaa cunus bas bay rabtaa liin iyo basbaas iyo moos usoo qaada kaaliska arag caraftay kaga dartay wax walba quruxda caraftaa kasii daran macaankiisaa kasii daran cunadu waaba intaa caraf qurux macaan muhiimadeedu waaba intaasba cunada saasaan usoo samaysana asxaabi daawashadiina aad baad ugu wanaagsantiin insha allah waxaan rajeynayaa inaad la wadaagtaan saaxiibadiina subscribe-tana idin naga ilaawin like-tana idin naga ilaawin